10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. daawadayaal sanad cusub oo wanaagsan iyo habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhamaantiinba daawadayaasha iyo waliba ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan aan ku soo dhaweynayno sanadka cusub daawadayaal barnaamijkan aynu ku soo dhaweynayno sanadka cusub waxa caawa marti noogu ah kooxda midnimo baan oo inooga yimid magaalada Dhagaxbuur ee caasimada gobolka Jarar goobtan aynu ku sugannahay waa xarunta telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV sidoo kale waxa goobtan qurxinteeda iyo habeynteeda gacan weyn ka geystay Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamuud oo isla markaasi ah wiil dhalinyaro ah isla markaasina maskaxdiisa ka curiyay inuu keeno qurxinta goobaha caweyska iyo sidoo kale goobaha arooska daawadayaal markana aynu soo dhaweyno kooxdii midnimo baan soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada Nabad TV iyo sanadka cusub kooxda midnimo qaran midnimo baan oo runtii aanu aad iyo aad ugu mahad celinayno sida quruxda badan ee sharafta leh ee waliba ay noogu soo galeen taraaga dheer ee nooga yimaadeen magaalada Dhagaxbuur bal waxaan ku soo dhaweynayaa kooxda iyo sanadka cusub aad iyo aad baad u mahadsantihiin horta Nabad TV waan idin mahad celinaynaa waxa weeye maaragtay ka soo qaybgalayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan iyo waxa weeye daawadayaashaba waxaan leenahay sanad cusub oo wanaagsan kooxda midnimo qaran iyo Nabad TV caawa waan isu joognaa وهاجاك داوديال سيدان هوري idinku sheegnayba goobtan aan ku sugannahay waa xarunta telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV oo isaguna ah telefishin cusub oo dhawaan laga furay xariga waxaan soo dhaweynaynaa sanadka cusub waxa goobta inagula sugan kooxda midnimo baan oo iyaguna sidaan hore idinku sheegnay inooga yimid magaalada Dhagaxbuur hagaag daawadayaal waxaan ugu horeyn u yeedhaynaa gudoomiyaha kooxda midnimo baan Deeq Mukhtaar
kusoo dhawow Deeq Mukhtaar oo telefishinka Nabad TV iyo barnaamijkan cusub ee aynu kusoo dhaweynayno sanadka cusub waan dhawahay walaal qaali deeqow maadaama oo tahay gudoomiyaha kooxda isla markaasna aad tahay wiil aad iyo aad u daayar bal wax yar waxaad nooga warbixisaa ama faahfaahin yar aad naga siisaa kooxda Midnimo Band xilliga la aasaasay iyo qaab shaqeedkeeda maadaama ay tahay koox aad u wada daayar si wanaagsan isugu xiran bismillaah kolka waraysa waxaan salaamayaa TV-ga Nabad TV waxaa kaloo salaamayaa bulshooyinka ka soo qayb gashay xafladda sanadka cusub kulli midnimo qaran waqtiga hore waxa la dhigi jiray Jarar Band hal la dhahay waxay ahaan jirtay koox qabaleyada ka dhisan oo qolada qabaleyada ka dhantaysa muddo kadib waxay noqotay koox aan heesin balse laakiin rajaynaysa inay heesto aan ka dhaxgalay kooxda qabaleyada ka dhisan ma waxaad ula jeedaa kooxda degmooyinka yar yarka ka heesa ee qabaleyada maamulka magaalada Dhagaxbuur hagaag qabaley kamida oo qabaleyga afraada xaafad kamida yani kamida sax oo xaafada afraada marka hore ka dhisnay sax kadib waxay noqotay koox rajaynaysa inay heesto oo la baxday Jarar Band sax kulli caqabado badan iyo rafaad badan iyo dhib badan ay soo martay maanta dee waad aragtay oo waxay isu bedeshay midnimo qaran sax run ahaantii heerka ay maanta taagan tahayna cid kale ma gaadhsiinin ama shaqsi kale ma gaadhsiinin sax waxaa gaadhsiiyey laba abwaan oo kooxda si hagar la'aana u garab qabtay sax هو هري أبوان أحمد آدم محمد أبوان إيش على sidoo kale ku xigo abwaan baadi hagaag deeqo waxaan filayaa in adiga laftirkaagu dhinaca heesaha ama dhaantooyinka aad baad isugu fiicantiin bal caawa heesta ugu horeysa ee aynu ku furan lahayn barnaamijkeena adiga inoo hayaan filayaa heestaasi iyo waxaad inoogu furi lahayd barnaamijka maxay noqon doontaa caawa waxaan barnaamijka inaan ku furo aan rabaa hees aan ugu talagalay hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan leeyahay hooyooyin tii dhashay iyo tii aan dhalinba sax aan leeyahay hooyooyin sanad cusub sanadka sanadkiisa Ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabad qab haydin ku gaarsiiyo heesta hooyooyinka oo aan caawado erayada iyo laxanka waxa iskale abwaan agtayda aad iyo aad qaali uga abwaan Axmed Aadan Maxamed Ashxala sax muusigana waxa tumay Maxamed Yare codkuna waa adiga hagaag daawadayaal balimikana Deeq Mukhtaar iyo heestaasi hooyooyinka iyo masraxa ayaan u kala dhaxbaxayna hooyooy aragaygiyay hooyooy udugii naftaay adduunka inaan nimaad midii loo abuuraye hooyooy aragaygiyay hooyooy udugii naftaay adduunka inaan nimaad midii loo abuuraye intaan nuurkaaga jiifay intaad wadhaxdaygu qaaday awaydin markaan ahaa intaad ilaalinaysay maylaw hooyoy macaan maylaw hooyoy macaan intaan nuurkaaga jiifay intaad wadhaxdaygu qaaday awaydin markaan ahaa intaad ilaalinaysay maylaw hooyoy macaan maylaw hooyoy macaan jannadii udkoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmariye jannadii udkoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmariye ahaw hooyoy ahaw abidka ahlu janna ahaw hooyoy ahaw ahlu janna ahaw
jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari ahaw hooyoy ahaw abidka ehlu janna ahaw hooyoy ahaw ehlu janna ahaw hooyoy uma khayr qabtaay hooyoy udugkaygiyey ma jiro xaduumano xaqaaga idlayn karaa hooyoy uma khayr qabtaay hooyoy udugkaygiyey ma jiro xaduumano xaqaaga idlayn karaa intaad qaydii adkaysay ibtaada intaad isiisay aqliga xilligaana yeelan intaadan facii bislaysay maylow hooyoy macaan intaad qaydii adkaysay ibtaada intaad isiisay aqliga xilligaana yeelan intaadan facii bislaysay maylow hooyoy macaan jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari ahaw hooyoy ahaw abidka ehlu janna ahaw hooyoy ahaw ehlu janna ahaw jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari ahaw hooyoy ahaw abidka ehlu janna ahaw hooyoy ahaw ehlu janna ahaw jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari jannadii udgoonayd ilaahay hooyo kugu abaalmari ahaw hooyoy ahaw abidka ehlu janna ahaw hooyoy ahaw ehlu janna ahaw hagaag daawadayaal heestaasi ahaw hooyoy ahaw ehelkii jannada uu noogu luuqaynayay fanaanka deeq mukhtaar intaasi ayaynu kaga gudubaynaa runtii heestaasi waxay ahayd hees qalbiyadeena aad u gelgishay isla markaasina lagu ammaanayay ama loo qaaday hooyooyinka dhammaanba hooyooyinka aad baan u jecelnahay waxaanu leenahay dhammaanba hooyooyinkeen ilaahay ha ka dhigo ehelkii jannada hagaag daawadayaal bal markana waxaynu u yeedhaynaa hodan indhadeero hodan ay ku soo dhawow masrax hagaag hodanay marka ugu horeysa waxaanu kugu soo dhaweynaynaa telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV
iyo barnaamijkan aanu ugu dabaaldegayno sanadkan cusub ee 2020 iyo isla markaasina aynu ku sagootinayno sanadkii tagay 2019 ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba barnaamijkan iyo telefishinka Nabad TV. walaal waan dhawahay marka hore aad baan hodanay ka wad aad baad u mahadsan tahay hodanay bal heestaan caawayno wadid ee aad ugu soo tala gashay sanadkan cusub ee 2020 heestaasi erayadeeda iyo laxankeeda qofka saaray muusigeeda adigoo inoo soo koobay heestaan caawa horta halkan aan sanadka cusub ku furayo waxaa la yiraahdaa wacnaan baad siisaa erayada waxaa iska leh abwaankayga qaaliga Mustafa Maxamed Nuur Baadiye laxanka waxaa iska leh walaalkay Cabdirashiid Cabdi Hargeysa muusiga waxaa iska leh Maxamed Yare codkuna waa adiga codkana heestaasi wacnaan baad siisaa iyo hodan indho deero ayaanu markana idin kala dhaxbaxaynaa daawadayaal dawsho wanaagsan waxyaa jirkaygiyo wadnahayga bidixo wadayaasha dhiige unugyada warabsho waadii udgoon tahay waxyaa jirkaygiyo wadnahayga bidixo wadayaasha dhiige unugyada warabsho waadii udgoon tahay waxaanahay qofku nugul war hooy waan ku jecelahay waan ku naadshaa waana ku ildaranahay waxaanahay qofku nugul war hooy waan ku jecelahay waan ku naadshaa waana ku ildaranahay wacnaan baad siisaa qalbiga ku heshada wanaagan dhammaanayn wafiigu beertee caashaqa hunoy hawaydayn caashaqa hawaydayn wacnaan baad siisaa qalbiga ku heshada wanaagan dhammaanayn wafiigu beertee caashaqa hawaydayn caashaqa wiilyahow hawaydayn walbahaarka caashaqa waadiga dawaysa samaynan ku warnaan waynaha ka tuuga waa ciidsigaygo walbahaarka caashaqa waadiga dawaysa samaynan ku warnaan waynaha ka tuuga waa ciidsigaygo
wanaagii naftaydo weedhahaadi leedahay runtu waa ma guurtee waan ku caafimaadaa عاشق هويدين وعنا بعد سيسا قلبك كويشدا وانا دمانين ها وفي قبرتي عاشق هويدين عاشق ويليو وعنان بعد سيسا عاشقة هويدين الليلة تاسي وحي أهيد هاسان إن بعادي هاين أو تعايلة أو على أنه وحانو لنا هاي عاشقة هويديننا aad baad u mahadsantahay hoodan indho deero mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaanu soo dhaweynaynaa sanadka cusub ee 2020 goobtan aynu ku sugannahay waa xarunta telefishinka caalamiga ah ee Naba TV oo dhawaan xariga laga jaray waa TV cusub iyo sanad cusub bal markana waxaynu u yeedhaynaa Cabdi Hargeysa waxaan ku leenahay soo dhawow هاجا عبد هرجيسو عبد رشيد عبد هرجيسة وهرين بلان سؤال كويدية عبد هرجيسة محد كله بحد ولا والله أنا بحنا وحليس عن ليه وحني بحسي كواحدة من نبان هاجا محيك وجو بحيا سبب حليس عن هذا هذه هرجيسة اللي ترميها هاي وهاجا عبد هرجيسو بل أنت ساينو كجو قدومنا مجا عاجا يحوجا غير فلقينتا بل هست عاوينو وده يدقوا تلقى شيء سنة كعصب ولا الهستن heestan waa hees ka hadlaysa waayaha adduunka waxaa ereyada iskale abwaan aad u daayar ereyadiisa aan aad iyo aad u jecelahay waa abwaan Axmed Aadan Maxamed Abaanesh Cala laxanka waxa iskale ustaadka weyna Jinni Shumi codkan waa aniga muusiga waxa iskale Maxamed Yare heestaasi waayaha adduunka iyo codka laasiga ee Cabdi Hargeysa baynu imikana u kala dhaxbaxaynaa iyo masraxa iyo daawadayaasha sax waa ma santahay sanad qorsho loo dhaqaaqo qaydka loo adkaysto ka qabiyoobi ba jira qorsho loo dhaqaaqo qaydka loo adkaysto ka qabiyoobi ba jira waxaan qaylo la dirin qanjera la marin qilaan hadana adi ku qabsoomi baa jira waxaan qaylo la dirin qanjera la marin qilaan hadana adi ku qabsoomi baa jira ficilaad marqabato qofahan markaa adi kugu taagan qiimo qalad loo fahmaa jira
ilaad marqabato qofahaan markaa adi kugu taagan qiimo qalad loo fahmaa jira qawla tiraahdo adi qaali kugu ana shaqadan weydiyo dad qawada ayaa jira dad qawada ayaa jira qawla tiraahdo adi qaali kugu ana shaqadan weydiyo dad qawada ayaa jira dad qawada ayaa jira qofad samaa la doontood xumantiisa qarisood wanaagiisa qeexdo isaguna ku qalayo qabrigaaga qodayo ku qonfayabaa jira ku qonfayabaa jira qofad samaa la doontood xumantiisa qarisood wanaagiisa qeexdo isaguna ku qalayo qabrigaaga qodayo ku qonfayabaa jira ku qonfayabaa jira qofad samaa la doontood xumantiisa qarisood wanaagiisa qeexdo isaguna ku qalayo qabrigaaga qodayo ku qonfayabaa jira ku qonfayabaa jira xilli ay qadhaadhay ood sabool ku qeexnayd hadduu jiri qof kuu roon quudkiisa dheeftana qayb ahaan ku siin jiray hadday waayo qoomaan qofkii kala dhantaalaan adna maalqabeen iyo qani weyn lagaa dhigo ha qardumin abaalkiiuu qofkaasi kuu galay hagaag daawadayaal intaasi aynu kaga gudubno heestaas jacaylka ahayd iyo cabdi hargeysa marka xigtana waxaan u yeedhayaa fanaanada idil ay ku soo dhawow masraxa walaal idilay adigoo ka faa'iideysanaya waqtiga iyo jaaniska iyo waliba sanadkan cusub yaad salaami lahayd asxaabtada familkaaga waxaan salaami lahaa familkayga dhammaan asxaabta intan ila joogta iyo idinkaba dhammaan iyo inta ka soo qayb gashay Naba TV aad baan u salaamayaa waa hagaag idilay fanka iyo kooxda midnimo baamba adigu goormad adiga ka idil ahaan ku soo biirtay 3 bilood baan ku jiraa muddo 3 bilood aan ku jirtaa marka waxa la oran karaa heestani waa heestii kuugu horeysay mise waxa jira heeso kale waa heestii ugu horeysay waa hagaag heestaada kuugu horeysay ee caawa aad sanadka cusub la kowsanayso waa hees cusub oo waa heestii kuugu horeysay waxa tahay gabadha yar shidan ee aadkii u quruxda badan dabcan waxaan filayaa heesta aad ku furtay sanadka cusub isla markaasina aad adigu heestii kuugu horeysay inay noqon doonto hees masraxa ruuxi doonta bal heestaas yarayadeeda cidda leh laxankeeda wax yar naga maqashay heesta waxa iskale abwaankayga qaaliga abwaan Mustafa Axmed abwaan baadiye hagaag waxa laxanka saaray gudoomiyahanaga heesta magaceed heesta adduun baa la dhahaa adduun dabcan heestaas waxaan u malaynayaa heesta adduunkii oo dhanba ka hadlaysa inay noqon doonto bal waayahay heestaasi adduun iyo fanaanada idil ayaanu markana u kala dhexbaxaynaa
dalooshiyo waa hadima joogtaa marna hogaldaysiyo waa haleela kuu dihin adduun heerba waa heer oo maaq dalooshiyo waa hadima joogtaa marna hogaldaysiyo waa haleela kuu dihin ruux baantiila barbaanelin anfaaciga habka nolosha weeyo barhku gelinba waa meel ruux baantiila barbaanelin anfaaciga habka nolosha weeyo barhku gelinba waa meel anadkan jeclaayo wadaad hoos qabow taal anaa ku haraadane howlaha danteenna mayla qaban hareeraha halyimaanka deeqo wadaad hoos qabow taal anaa ku haraadane howlaha danteenna mayla qaban hareeraha amiin hilimba waad oo baantageedaha waa loo hamuumaa hadba meesha rayskale waa loo hayaamaa amiin hilimba waad oo baantageedaha waa loo hamuumaa hadba meesha rayskale waa loo hayaamaa ruux ku hanweynba marbaa hadalku taartee hiyigaygu suu rabo taaneedkay qabo ruux ku hanweynba marbaa hadalku taartee hiyigaygu suu rabo taaneedkay qabo anadkan jeclaayo wadaad hoos qabow taal anaa ku haraadane howlaha danteenna mayla qaban hareeraha halyimaanka deeqo wadaad hoos qabow taal anaa ku haraadane howlaha danteenna mayla qaban hareeraha anadkan jeclaayo wadaad hoos qabow taal anaa ku haraadane howlaha danteenna mayla qaban hareeraha hagaag daawadayaal heestaasi hanadkaan jeclaayow haddaad hoos qabow taal anaa maanta haraadane heebay tidhi idil howlaha danteennaabay tidhi goormaynu waa hagaag heestaasi oo hodan ay si qurux badan ugu luuqaysay dabcan waxaan filaynaa hanadkay jeclayd ee u yeedhaysay in uu howlaheeda la qaban doono haddii allaha awoodda liidmo annaguna waxaanu leenahay hanadow dee gabadha howlaheeda kaale la qabo
waa si wanaagsan daawadayaal wari waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii sanadkan cusub ee 2020 aynu ugu dabaaldegaynay isla markaasina aynu ku sagootinaynay sanadkii inaga tagay ee 2019 sidoo kale sidaan hore idinku sheegnayba waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinaynaa cabdiqaadir cabdulaahi oo ah wiil aad u daayar isla markaasina maskaxdiisa ka keenay qurxinta isla markaasina qurxiyay goobtan aadka u quruxda badan ee aynu caawa ku sugannahay bal markan waxaan u yeedhaynaa abwaan baadiye abwaan soo dhawow ugu horreyn abwaan baadiye kuley anu abwaan baadiye baan ku aqaanaa waana magaca ay bulshada dhammaanteed ku taqaano ugu horreyn kusoo dhawow telefishinka Nabad TV bal adigoo ka faa'iideysanaya jaaniska iyo kaamirada Nabad TV yaad halkan salaan uga tabin lahayd ayaan aad iyo aad badan mahadsan tahay marka koowaad aan ku salaamayaa marka labaad waxaan salaamayaa Nabad TV magaca aad la baxdeen baa aad wanaagsan marka xiga bulshada inaan korisiyaa iska daa bulshada iyo kooxdan ugu dambaysiinaya marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan farxad sanadkan hay noogu soo gala farxadna hay noogu dhamaado ayaan leeyahay waxaana salaam ku sagootiyay kii tagay madha may labadaba ka tagay ma salaam ku sagootiyay kana salaam ku sagootiyay hagaag inta kadib waxaan si qurux badan aan u salaamayaa bulshadan qiimaha iyo qadarinta mudan ee edebta badan ee ka soo qayb gashay barnaamijkan sanadka cusub ee 2020 iyo dhanka Nabad TV waxaan iloobi laakiin kooxdeeda qaaliga midnimo qaran oo mar kasta isu taagtay sidii ummadda Soomaaliyeed u dhiirigelin lahayd xagga jacaylkayga soo baranaysa baad moodaa laakiin waa kooxda lagu bartay dhanka wadaniga wada jirka ummadda Soomaaliyeed waxaana ka go'an tahay inay ummadda abaabusho mar kasta aad baan idin salaamayaa baan leeyahay anaguna aad baan ku salaameynaa abwaan baadiye aad baan kaaga qaadaynaa salaantaasi quruxda badan ee aadna salaantay dabcan bulshaduna waxaan filayaa inay sidoo kale ka qaadeen abwaan baadiye bal ugu horreyn horta wax yar aan ka weydiiyo taariikh nololeedkaaga maadaama oo tahay abwaan kooxdan lafdhabar u ah inta badan heesihii imika la qaadayeen arkaya inta badan adigu aad ku magacaawneen bal wax yar noo taataabo iyo magaca baadiye siduu kuugu baxay waxyaabo badan kulli taariikh nololeedkayga haddaan ka sheekeeyo waa si fiican su-aal muhiimaad weydiisay taariikh nololeedkayga waad aragtaa intaan ku soo gaadhay nolol kulley meelo badan oo kasoo noolaa oo wadanka deegaanka Soomaalida Somali State aad baan u soo wada maray baad moodaa laakiin inta badan waxaan ku qaatay gobolka Jarar iyo nawaaxigiisa geelana raaci jiray iyo xagga yar macaws gaaban oo xidhanada magaalada waad iska fahmaysaa marka kolkaad macaws gaaban la soo gashay boombaadi lagu bixiyay ma malaha sidaas meher muuse kala magac ku bax ka boodsiyo ad geelaas ku suntada ayaga baynu ka siinaynaa waa hagaag abwaan kulay dhinaca dhaantooyinka aad u badan tahay sidaan filayo caawana waxaan u malaynaa inaad dhaanta jagac inooga siin doonto bal maxaad inoo wada caawa kulay waa runta xagga dhaantooyinka maadaama aan iska reebaadiyanahay bal xaggii dabaadiya lagu yaqaan waa dhaqanka iyo dhaantada baan jagac ka siin doonaa insha Allah laxanka adiga ayaa iskale erayada waa baadiya iskale hadaad isii waan qaadanayaa kulay laakiin duuduub ku qaada waxa baad ale baan u malaynayaa ma erayada laxankaad u qaado laxanka hadaad isii hayo waan qaadanayaa labadaba erayada iyo laxanka waxa ma suukay dartay muusiga waxa iskale macallin aad kooxda lafdhabar u ah oo qaali ah waa macallinkii mar hore la wada sheegay waa Maxamed Yare halkan aad iyo aad baan uga salaamayaa xagga isagana nin aad nagteeda qaalibka Cabdiqaahir Ilkacse isagana halkan aad baan uga salaameynaa macallimiinta kooxda sidoo kale ila salaam waan kula salaamayba mar hore salaamay dhaantada bal dhaantada sadcaaw inoo wadid iyo abwaan baadiye iyo masrax ayaynu kala dhaxbaxaynaa hagaag
markaan ku jaleeca quruxay jalbeebtay jacayl daraadii oo jalbeebtay jacayl daraadii markaan ku jaleeca quruxay jalbeebtay jacayl daraadii oo jalbeebtay jacayl daraadii jannooy nimco jalaaqsan joog dheerey jegaanta cirkaad la jaatahay oo jegaanta cirkaad la jaatahay jannooy nimco jalaaqsan joog dheerey jegaanta cirkaad la jaatahay oo jegaanta cirkaad la jaatahay jawaabtaada waanu jeel qabayo jeclaystay la joogistaadii oo jeclaystay la joogistaadii jacaylkaagu jiifay diidyo jalkii uga go'ay daraadahayay jideer mara jiiraley koriyo dhankaaga nimcooy lay jiidyey jacaylkaagu jiifay diidyo jalkii uga go'ay daraadahayay jideer mara jiiraley koriyo dhankaaga nimcooy lay jiidyey nimuu jargaraaridaanahay oo nimuu jargaraaridaanahay nimcooja wareerka caashaquyey nimuu jargaraaridaanahay oo nimuu jargaraaridaanahay jawiga farxadeen qalbiga ku jalay waxaa tahay joora nuur badan oo waxaa tahay joora nuur badane jawiga farxadeen qalbiga ku jalay waxaa tahay joora nuur badan oo waxaa tahay joora nuur badane ku yaal ma jeedsada ruux jaleeca oo ma jeedsada ruux jaleeca jacaylkaagu jiifay diidyo jalkii uga go'ay daraadahayay jideer mara jiiraley koriyo dhankaaga nimcooy lay jiidyey jacaylkaagu jiifay diidyo jalkii uga go'ay daraadahayay jideer mara jiiraley koriyo dhankaaga nimcooy lay jiidyey jacaylkaagu jiifay diidyo jalkii uga go'ay daraadahayay jideer mara jiiraley koriyo dhankaaga nimcooy lay jiidyey dhawaaldhawow kusoo dhawow nabadtiikii iyo barnaamijka sanadka cusub waan dhowhay walaal waa leeyi adigu
gabadh aad u qurux badan baa tahay bal maxaad u wadaa iskaabuladan iyo dadkan indhaha soo wareegay sanadkan cusub ma hees noocee baad wadaa walaalo waxaan wadaa hees cusub oo jacayl ah heesta cusub ee jacaylka ah baleerayadeeda qofkii sameeyey ilaahay cida saartay wax yar inaga maqashay erayada waxaa sameeyay abwaankaygoon aad u jecelahay abwaan mustafa axmed xuseen abwaan baadiye laxanka waxaa saaray gudoomiyahayga daaq muxtaar muusikana waxaa tumay maxamed yare hagaageen heestaasi magacaad waa naruura caashaqo heestaasi naruura caashaq oo ah hees jacayla iyo nawaaldawo iyaynu markana maslaxa kusoo dhaweynaynaa beewasho wanaagsan naruura caashaqo waa nolol macaan badan waa nasteexo laba ruux u nagaansha curiya waa nasteexo laba ruux u nagaansha curiyaan waa naruura caashaqo waa nolol macaan badan waa nasteexo laba ruux u nagaansha curiya waa nasteexo laba ruux u nagaansha curiyaan nalkii iftiimiyo maanta nurka ii baxay qofkaygu nimceeyo qalbigaad ku nudan tahay nalkii iftiimiyo maanta nurka ii baxay qofkaygu nimceeyo qalbigaad ku nudan tahay niyadayda adiga naxariis ku beero adiga nagaansha ku naxnaxshay maanke macan ruuxdan ku nugul anafayni weliga niyadayda adiga naxariis ku beero adiga nagaansha ku naxnaxshay maanke macan ruuxdan ku nugul anafayni weliga wanudub xanuun kulu waana naxsha xooglo nasribu abuura waana naxsha xooglo nasribu abuura waana siyo caashaqu wanudub xanuun kulu waana naxsha xooglo nasribu abuura waana naxsha xooglo nasribu abuura murtii nuxurka keentiyo nadka iyo ujeedada naftu way ku raacdee iga dhowr nitaaqada murtii nuxurka keentiyo nadka iyo ujeedada naftu way ku raacdee iga dhowr nitaaqada
shaymaanke macaan ruuxdan ku nugul anafayni weliga niyadayda adiga naxariis ku beero adiga nagaansha ku naxnax shaymaanke macaan ruuxdan ku nugul anafayni weliga niyadayda adiga naxariis ku beero adiga nagaansha ku naxnax shaymaanke waa hagaag daawadayaal intaasina aynu kaga nimaadno heestaasi aad ka macaanayd iyo codka halacsiga ah ee Nawaaldawo markana waxaan u yeedhaynaa Abshir Birmad ku soo dhawow masraxa adiga iyo waxa qurux badan inoo wadid Abshir Birmad oo ku soo dhawow barnaamijka sanadka cusub ee ugu dabaaldegayno iyo telefishinka Naba TV walaal dhawaay abshiro aad bad u daayar tahay runtii waxa tahay inkastoo aad kulligiinba wada daayar tihiin haddana waxa tahay shakhsiga ugu daayar sidaan arkayo goormaad kooxda ku soo biirtay kulley hadda inta fankaygu uu gaaray dhamaankayga Soomaaliyeed waa wanyar waa hal sano ka hor aad bad u yaray aad kulley intan aad baan uga sii yara maxay kuugu dhalatay inaad fanka ku soo biirtay كل هرتا فنك واهب إلهي تتكسكسي عدك أما يعني واهبه وقفكنا ووحو إلهي يبؤسي فنك وحسك كان أما أها أبيات مركا كل فنك واجي أن يرى أدبان وشعلان جري بهوين النبتي في دمانتين صاحب قال أدبان دمانتين دين ولا السلامة يا أنا قلنا أدبان كاجا وحن أدو السلامة يا دنيرتن aadka u quruxda badan iyaguna sanadka cusub ka soo qayb galay oo la sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo ay nagu gaarsiiyo aamin baanu leenahay anaguna kulli waxaan aad u salaamayaa dhammaan familygayga ma soo koobi karo dhammaantood aad baan u salaamayaa waxaan kaloon aad u salaamayaa marwo nagu qaali ah marwo filsan happy aad baan u salaamayaa walaasha iyadana kulli heestan aan caawa wado waxay ka hadlaysaa qiso dhab ah heestan qisada dhabta ka hadlaysa sida uu ii sheegay abwaankii sameeyay abwaan Khadar Casood oo heestan ku dhacday heestan waxa la dhahaa cabasho waxay ka hadlaysaa yacnihii gabadh markaad isjeceshihiin ama ay idinka dhaxayso kalsooni in aadan yacnihii haddii ay kalsooni idinka dhaxayso qofka jacaylkaaga ah ama aad isjeceshiin in aadan qof kale kula xaman yacnihii wuu ku cabanayaa heestan waa abwaanka unbay qisada ku dhacday isla heeskan sameeyey asaga laftirkiisa qisadan ku dhacday iska sameeyey heestan abwaan Khadar Casood wuxuu joogaa dalka dibadiisa aad baan saaxiibkay u salaamayaa laxanku waa Maama Laki موسيقى وأنا حريستي كان الله هسي نور الدين عبد آدم كل هاستن عبشال لها أبوان كؤاد بوجا ودا وعبنايا هجاج هاستاسي عبشة يا مسرح عيان ومركنا يدين كلا دحب حينا يو أبشر برمت لو شو نكس عاشقو إكالي محو عيليقو فرفري محو عدلا مراني ديغي محو عدوي جبيي محو عدلا مراني ديغي محو عدوي جبيي محو عاشقو إكالي محو عيليقو فرفري محو عدلا مراني ديغي محو عدوي جبيي محو عدلا مراني ديغي محو عدوي جبيي محان
cabashada aan qabo yartaan calmadeen ka helay kunjeer ku ceshaan ku idhi adaan ku calolugle cawooy i dareen marqudha maxaan cabashada aan qabo yartaan calmadeen ka helay kunjeer ku ceshaan ku idhi adaan ku calolugle cawooy i dareen marqudha anoo ku caleema saaray hablaha adika casuumay haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho anoo ku caleema saaray hablaha adika casuumay haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho caashaquu igubay muxuu culasigu abuuray intuu fikirigu cadibay maxaan ceeshkii ka go'ay intuu fikirigu cadibay maxaan ceeshkii ka go'ay muxuu caashaquu igubay muxuu culasigu abuuray intuu fikirigu cadibay maxaan ceeshkii ka go'ay intuu fikirigu cadibay maxaan ceeshkii ka go'ay anoo cisi iyo wanaag cawooy dusha ku huwiyey haddaad ka carar istidhi dunidu waa laba cishe cidlada weheliga noqo anoo cisi iyo wanaag cawooy dusha ku huwiyey haddaad ka carar istidhi dunidu waa laba cishe cidlada weheliga noqo anoo ku caleema saaray hablaha adika casuumay haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho anoo ku caleema saaray hablaha adika casuumay haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho anoo ku caleema saaray hablaha adika casuumay haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho haddaad ceeli qodayso anigu ceebkuuma quudho
hagaag daawadayaal nabshiriyada wuxuu yidhi haddaad ceel ii qodaysay anigu ceebkuuma quudho bal intaasi aynu kaga gudubno heestaasi markana waxaynu makarafoonka ugu yeedhaynaa laki cabdi laki cabdi laki waxaanu ku leenahay ku soo dhawow makarafoonka Nabad TV barnaamijkan cusub ee sanadka cusub aynu ku soo dhaweyn aan idhaahdee barnaamijkan aynu ku soo dhaweynayno sanadkan cusub ee 2020 isla markaasina aynu ku sagootinayno 2019 laki ay ku soo dhawow barnaamijka adiga oo ka faa'iideysanaya jaaniska iyo kaamirada Nabad TV yaad halkan ka salaami lahayd ama maxaad hadal oo dhan lahayd وندوي ولا لو كورادي بن سلاميا waxay waxaan ka salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku noosha gaaraan muslimka waxa kale oo salaamaya waxay kooxdeeda midnimo qaran kaas way ka qaadeen baan filayaa dhamaanba muslimiinta iyo dadka aad salaantay oo dhan laki adiga laftirkaagu aad baad u daayar tahay abshir yare waxba ma dhaantid bal oran karaa goormaad ku soo biirtay kooxda midnimo qaran waan daayaray balse laakiin waxay kooxda xil horan ku soo biiray 2018 waad ku soo biirtay maxaa kugu dhaliyay laki inaad fanka ku biirto adigoo gabadh daayara والله كل يوم بس كتشعل فنانية هذا بيجا النقط هجاج لك يعاو هستا أدو تلاقي شيء سنة كان عصب رياضة يلا حن كذا هستا سنة كان عصب تلاقي لحن هست رياضة حاس كلامون كي قالجا مصطفى أحمد حسين لحن كقدومية يجون هذه تشعل عدي مختار هستا مقعدة هستا قرشة لا قرشة وح نقول كرت وحلورن كرا وح قرشة وهست عائلة قرشة رير كجورة يا قرشة رير كجورة بالله hagaag daawadayaal qorshu reer ku guuraa iyo fanaanada laki aynu imikana masraxa ku soo dhaweynaynaa daawasho wanaagsan
daawadayaal lakii iyo iga dhowr qamumyada heestaasina wada ruuxday ee dhammaanba masraxii wada ruuxday eena wada kicisay aynu intaasi kaga nimaadno daawadayaal waxaynu kusii soconaa gebagabadii barnaamijkeena waxaanu ugu dabaaldegaynay sanadkan cusub ee 2020 sidoo kalena waxaanu ku sagootinaynay sanadkii tegay ee 2019 dabcan madashan aynu ku sugannahay waa xarunta telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV sidaan hore idinku sheegnayba qurxinta waxaa gacan weyn ka geystay Cabdiqaadir Cabdulaahi sidoo kale waxaanu mahad celinaynaa kooxdan midnimo qaran ee nooga timid magaalada Dhagaxbuur oo aad iyo aad u soo dhaweynayno mar labaad iyo mar saddexaadba markana waxaynu u yeereynaa Tarayso alfanaan Tarayso ku soo dhawow barnaamijkan sanadka cusub iyo telefishinka Nabad TV aad iyo aad baan u dhawahay walaalle adigoo ka faa'iideysanaya kaamirada Nabad TV yaa jeclaan lahayd inaad ka salaanto halkan waxaan salaamayaa horta adiga waan ku salaamayaa Nabad TV-na waan ku xogsinayaa bulshadan aad ka qurux badan meesha fadhidan ayadana si fiican baan u salaamayaa iyadana hagaag anaguna aad iyo aad baan ku salaameynaa Tarayso fanka goorma soo birto horta aan ku weydiiyay fanka marka loo ogyahay mise ka aan loo ogeyn ma kuwa lagu ogeyn baa jira kuwa aan loo ogeyn baa jira soo basbeelay horta ka isla soo basbeeshay baan u baahanahay inaad u faahfaahin sida lagu ogeyn balanaca ogaanay ka aan loo ogeyn horta fanku iyo jacaylku inuu 9 jir ugu dhashay ma ku dhashay 9 jir waa waqti fogay oo waabad yareed xilliga maxaa jacaylku badan marka aniga oo 9 jir ayaan jacayl ugu dhashay ul yar oo bukoorada waan samaystay markoo qoolaaban waxaan samaysan jiray inaan biixda ka yarrogo oo gabdho igu soo istaagaan maadaama si aad u xarrogoto haye marka wallaahi waana sheeko daba dheer oo inaan halka ku soo koobi karin bay ila tahay waqti dheer qaadanayso hadii ma wax nooga taataaba waqtigeeda dheer ahaba iska maqnaatay marka 9 jir aan abu jacaylku ugu dhashay jacaylkii dhinac gabdhihii lama hadli karin oo waan ka yaraa oo aad iyo aad baan u yaraa haye dhinacna hunguri ugu jiray oo waxa isoo ka darmaday marka hunguri iyo ilugeel waa hagaag marka aniga oo meel fadhiya maalin oo yar oo 9 jirka ah hub qoradeena ay agtaala ayna aan ciyaarayo oo labadeeda gacmood midna bixitay midna midigtahay ay soo ciyaarayso oo la adig toobal lagu leeyo joogtahay haye ee gabar qurux badan soo martay haye oo arin dhowraysa waa gabdho hore ee halkan ku xidhan jiray kuulaha iyo xarigii la oran jiray galaalka laga soo hijiray waan gartay soo maray baa garanay marka habeenkii ka horreeyay xogaa aroos baan tagay oo waxaan damcay waxaa laga qaadayo waan arkay haye marka waxaan halka ku soo tashaday inaan aniguna arooskii habeen dambe ka qaado wax oon ka halceliyo inaad heestaad ku soo talagashay oo arooska habeen dambe dhacay ka soo heestay dhinacayda aan cid ugu imanin waad xan weyneed haye marka gabadhii way soo martay gabadhii waan iska qariyay waxaan si hadii aad la hadasho armi aabaha kugu tirtaaba waxaa dhinac waan ka yarbaqiin haye marka erayaan isku soo hagaajistay way jireen oon isleeyana ka dhulcin erayada kolka ma gabadhaad u samaysay gabadhaan u samaystay gabadhaan wadada iska socoteedana aqoon gabadh waxaan u maacabsan inaan gabadhan u samaystay arooskii laakiin gabadhaada halkiin baad u samaysay mise gabadhan meesha socotay may wallahi gabadhan waxaan doonay in arooska gabdhaha joogeen adigu iska samaysay gabdhaha islaameed baad rabtay inaad u qaato waxaan u samaystay inayna erayada aan samaystaa iga dhulcin meel cidla laakiin gabadhan inaan ku bilaabo hagaag marka gabadhii geed baan iskaga qariyo isma tusin aad baan u yaraan tanaan leekaad waxa ma ahayn gurna uga hay kabta gabadhna gabadhan bay ahayd hagaag marka erayadii baan gabadhii ku tuurtay intaan waan iska qarinayay intaa Soomaali istusin hagaag marka erayadii tan miyaa sheegaysaa bal erayadaas aad gabadha u qaaday noo sheeg maxaad u amray erayada waxaan iri naftayda nasteexadeediyo naindhaha nuuriyay ma noolayday baan idhi marka erayadaba meeshii aad taagneyd baad ka tidhi arooska baad la tagtay maya gabadhi lafteedii baan ku iroori arag iyadoo ku maqlaysa iyadoo ku maqlayn way maqlaysa laakiin imayna arkin maxay samaysay kulkaas marka gabadha hareeraha eegtay intay dhinacayga soo eegaysay baan wax yar baan intaan xaggan ka disay baan haddana xaggii kala istaagay halkii baan haddana naftayda nasteexadeedii indhaha nuuriyay ma nooshahay baan halkii ka yidhi
adoo hadal yaan ku daalina hal xaqaasan kaga imo kala xaqa gabadhi way jaawareertay adigu waxaad leedahay fankaygii aan la ogeyn halkaasuu berigaas ka jiray bal haddaba kan lagu ogyahay noo soo noqono bal caawa maxaad ugu tala gashay adigoo kullayba ilaa 9 jirkaagii waxaan malaynayaa waxyaabo badan baad haysaa marka waxaas kale bal haynoo dambeeyaan heestaad caawa ugu tala gashay sanadkan cusub maxay noqon kartaa sanadkan cusub heestan sanadka cusub ugu tala galay hees nimanka waa dhaanto aad iyo aad aan u jeclaa kulli inaan jagac ka siiyo dhaanto abwaanku aad iyo aad ugu fiican baa ii sameeyay oo anigu aan ula baxay cali cadde laakiin cali cadde bulshadu ay tiri baadiye magacaas cali cadde baynu caawa laga bilaabana u bixinaynaa bal cali caddahaasna ha qaato dhaantadaas erayada waxa iska leh abwaan cali caddaha sabtay anagu laakiin baadiye noo naqaana laxankana isaga leh dhaantadaasi iyo tarayso oo laftirkiis waxyaabo badan haya yaanu masraxa ku soo dhaweynaynaa kastada haweentan kama muusayay milgihii caashaqan martiqadka haga dhigay kastada haweentan kama muusayay milgihii caashaqan martiqadka haga dhigay behanow caashaq waa moolkaygu rido markaan kulanay baan laydhan helay macaan behanow caashaq waa moolkaygu rido markaan kulanay baan laydhan helay macaan naftu mahotayo meelayga haride kalay midhaajan mooyaan isma weheline naftu mahotayo mehanowga hadile kalay midhaajan mooyaan isma weheline arkay muuqaaga dheerishu milicsatay mawjadaha xubbigu igu soo maaxaya markay muuqaaga dheerishu milicsatay mawjadaha cishqigu igu soo maaxaya mandaweyay marwoy midab quruxsanay masallaha xubbiga meel ma wada hadhignaa mandaweyay marwoy midab quruxsanay
nasan lahaa xubbiga meel ma wada hadhignaa naftu mahohotayo meelayga haride kalay midhaa jannooyan isma weheline naftu mahohotayo mehanowga hadire kalay midhaa jannooyan isma weheline naftu mahohotayo mehanowga hadire kalay midhaa jannooyan isma weheline waa hagaag daawadayaal intaasi aynu kaga nimaadno dhaantadaasi iyo alfanaan tarayso waxaan maraynaa guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena caawa barnaamijkani waa barnaamijkan ku soo dhaweynayno sanadka cusub waa sanad cusub telefishan cusub iyo dad wada cusub iyo wax walba cusub ugu dambeyntii bal waxaan u yeedhayaa abwaan eeshcalaa abwaan soo dhawow waa hagaag abwaan eeshcalaa ku soo dhawow telefishinka Naba TV iyo barnaamijkan cusub sanadka cusub ayaanay waan dhawahay waxa weeyaan barnaamijka sanadka cusub waan ku dhawahay waxa weeye soo dhaweynta 2020ka sii sagootinta 2019 iyo waliba soo dhaweynta Naba TV oo cusub iyo anagoo cusub Allah iyo adigoo cusub anagoo isla wada cusub inagoo isla wada cusub iyo wax walba cusub sanad cusub waa runta aad iyo aad baad u mahadsantahay abwaan eeshcalaa dabcan abwaan eeshcalaa waa laf dhabarta midnimo qaran ama midnimo baanaan nidhaahne abwaan ku soo dhawow barnaamijka mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba sidoo kale waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa uguna mahadcelinaynaa kooxda midnimo qaran oo sidaan hore idinku sheegnay baa nooga yimid meel dhow taraag dheer noo soo galay barnaamijkan sanadka cusub si ay ugala qayb qaataan Naba TV abwaan bal maxaad caaway noo haysaa kulley abwaan eeshcalaa oo adigu dee waxaad haysaa laguma boodhanayo waxyaabo badan waad haysaa baldeeha ka qaad ayaanay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa telefishinka Naba TV iyo waxa weeye kooxda midnimo qaran oo iyagana aad iyo aad u salaamayo waxa kale oo iyagana aad u salaamaya bulshooyinta qiimaha iyo qadarinta mudan ee mashraxa waxa weeye ka soo qayb gashay sabootinta 2019 ka soo dhaweynta 2020ka iyo waxa weeye daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta kala joogan aad iyo aad baan u salaamay بعد السلام سنة عصب كل وحوية wax ka bedelan wixii ay kooxda midnimo qaran waday ma wado waxa weeye hees jacayla oo waxa weeye magaceeda la yiraahdo umul khayr heestan waxa sameeyay abwaan waxa weeye la yiraahdo barkhad ibrahim abdi oo marwadiisa ugu tala galay kadib anna waan u soo gudbinayaa way ka dhigan tahay codka laxanku waxa weeyaan waa aniga muusigu waxa weeye maxamed habanan la yiraahdo waa inankii wada joogna hagaaga abwaan eeshcalaa bal intaynaan u gudagelin heestaasi wax yaraan kaa weydiiyo maadaama oo tahay abwaan inta badanna sameeya heesa badan oo inta badan fanaaniinta waaweyn ay ku luuqeeyaan ama aan dhahdo kuwa yaryar adigu ay fanaaniin fara badan ku luuqayso bal heesaha faraha badan ee tiriso qaar waxaa ku jira dee aad u calaa qaar waxyaabo badan bal waxaad wax yar nooga ifisaa heesahaas aad tirisay faraha badan ma jiraan waxyaabo adiga gaar ku quseeya ama adiga qiso ka dhacday kugu dhacday aan idhaahdee kulley waxa weeyaan walaalay abwaan waxa uu wax ka sameeyaa inta badan waxa weeye wax uu ishiisa ku arkay waxa weeye looga sheekeeyo dhagtiisa ku maqlay iyo wax mala awaala kolka heesahani saddexdaas ka kooban yihiin laakiin waxaan ay quseeyo oo aan khaasigo ah wali waxa weeyaan ima soo marin wax yar aan ka weydiiyo intaynaan wali u gudagelin bal heestaada oo noqon doonta heesta aynu ku soo xidhanayno barnaamijka waxaa jirtay hees hadda ka hor aad qaaday aad samaysay aan dhahday adigu maad qaadin ay ku luuqayso fanaanad ubax darajo dabcan caaweyna lama joogto heestaasi waxay jawaab u ahayd hees
uu hadda ka hor qaaday Faysal Munir heestaas inta badan dadku waxyaabo badan bay bulshadu iska weydiisaa heestan qaar baa waxay u rogaan heestan waa siyaasad waa jacayl waa hees jawaab un heestii waa bal heestaa wax yar faahfaahinteeda naga aad iyo aad bad ayaanay u mahadsan tahay su-aashaas waan filayey keligaa imaad weydiin ummad fara badan baa isoo weydiisay jawaabteeda inaan bixiyaana waa wax meesha ku jirta heestaas anuma samaynin nin saaxiibkaya oo waxa weeyaan aad iyo aad u qaaliyo xubnaha kooxda waxa weeyaan ugu qaalisan waxa weeyaan hogaaminteeda wanaagsan kamid ah sameeyay waa abwaan baadiye heestaas heestay jawaabta u hayd baan anigu sameeyey oo hees Faysal Munir uu qaadi jiray ahayd heesta aan anigu sameeyey qiso jacayl baan ka sameeyey heesta uu abwaanku sameeyeyna qiso jacayl ayuu iyaduna waxa weeyaan jawaabteedii abu ka sameeyey balse laakiin sida waxa weeyaan ummaddu u adeegsadeen iyo sida ay waxa weeyaan hawada ku soo gashay ayaa ahayd marka waxaad leedahay qaabkaasi bulshada un baa u fasiratay laakiin anagu ma jacayl baa ka sameynay waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay heestaasina caawa waxay ahayd su'aashaasi jaanis aan kugu gaado nin badan kugu la'aa bal imikana abwaaneesh calaa ayaynu uga baxaynaa masraxa
jirkaygiyo umul khayr ilwaaday agagaarka xididada alif leegu qoray iyo waxaad tahay ee tahay astaan qaran ogada jirkaygiyo umul khayr ilwaaday agagaarka xididada alif leegu qoray iyo waxaad tahay ee tahay astaan qaran intaal wacan ehelu diin inaad tahay amusiya aqoon badan inaad tahay amra khayrku ababtiyo waxaad tahay iftiin baxay ilays nuuru soo diray intaal wacan ehelu diin inaad tahay amusiya aqoon badan inaad tahay amra khayrku ababtiyo waxaad tahay iftiin baxay ilays nuuru soo diray intaal wacan ehelu diin inaad tahay amusiyo aqoon badan inaad tahay amra khayrku ababtiyo waxaad tahay iftiin baxay ilays nuuru soo diray waa hagaag daawadayaal intaasi waxaa inoogu soo gabagaboobay barnaamijkeenii sanadkan cusub ee 2020 aynu ku soo dhaweynaynay isla markaasina aynu ku sagootinaynay sanadkii naga tegay ee 2019 dabcan goobtan aynu ku sugannahay waa xarunta telefishinka caalamiga ee Naba TV waxaa sida quruxda badan u habeeyay decorationkana gacan ka geystay Cabdiqaadir Cabdulaahi sidoo kale waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa kooxda midnimo qaran oo dabcan meel dheer nooga timid si ay noogala qayb qaataan barnaamijka cusub si ay noogala qayb qaataan aan idhaahdee barnaamijka sanadkan cusub ee 2020 waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba waanu idin mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaanba kaameramanada Naba TV aniga oon kala qaadqaadaynin oo aysan la'aantood noo qabsanteen xalfadan quruxda badan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha sharafta leh sida quruxda badan noogala soo qaybgalay barnaamijkeena waxaanu idin leenahay sanad wanaagsan sanad wacan iyo nabadgelyo walhigaysayaay sanad waliba oodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu adii